wuxuu isu haystaa dadka inuu ka horeeyo ka caqli badan yahay ka tayo badan yahay been buu isu sheegayaa kibirka iyo quruurkaasina waa waxyaabaha ugu badan ee dad badan aafeeyey qofku inuu ku sifoobo tawaaduc inuu isduldhigo واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد walaallayaal waxaynu ku sugannahay 10kii maalmood ee khayrka badnaa ee alla subxaanahu wa tacaala acmaasha la sameeyo uu ugu jeclaa acmaashuna ay ugu fadliga badnayd salaadda aynu tukanayno soomkaa la soomanaa masjidkaa lagu sugan yahay cilmigaa la dhegaysanayo khayraadkaa badan ee la samaynayo alla subxaanahu wa tacaala dhammaanteen haynaga aqbalo mowduucan oo aynu mar walba u baahan nahay athabaatu cala addiin diinta in lagu sugnaado sheekheena sheekh maxamed macalin axmed baa si fiican u soo koobay oo ciwaanku wuxuu ahaa sababaha diinta loogu sugnaado markuu qodob sheegaba waan masaxay waayo isku mowduucin baanu ka wada hadlayna manaanaan soo habaysan marka isaguna waa soo diyaariyey anna waa soo diyaariyey wixii aan soo diyaariyey markuu wada dhameeyey waxaan u dhigay si kalean u dhigay wixii uu sheegay inaan sii faahfaahiyo oo aan sii sharaxay insha allahu tacaala waayo qodobadii culimmadu ay ka hadashay nusuusta kitaabka ee sunnadu ay ka hadleen si fiican buu shiikhu usoo koobay kharlaasi waxay ku fiicnayd heshiis inaanu soo galno laakiin maanaan soo gelin nin walba ilaahay wixii uu waafajiyo laakiin in sha allahu tacaala waxay yidhaahdaan ninka horeeya matni buu dejinaya ka dambana uu sharxaya mid dambaa ka daba imanayo xaashiyuu saaraya mid baa ka sii daba tegaya oo taqriiraad buu ku samaynaya waxa weeye wax kasta kam taraka alawalu lilaakhir baa la yidhi wax kastoo la faahfaahiyey haddana waxa weeye wax lagu daro la waayi maayo insha allahu tacaala athabaatu cala addiin diinta in lagu sugnaado oo qofku xaqa uu ku sugnaado istiqaamada uu ku sugnaado islaamnimada uu ku sugnaado baahida loo qabo iyo sida ay muhimka u tahay waxayna tusaya suuratu اlfaatixa oo alle subxaanahu wa tacaala inugu waajibiyey maalinkii 7 jeer salaada faralka inaynu ku ducaysanno alle subxaanahu wa tacaala inuu ina hanuuniyo suuratu اlfaatixa 5 salaadood ee faralka ah maalinkii iyo habeenkii waxaa la waajibiyey oo fardu cayn inugu ah ihdina الsiraaط اlmustaqiim waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isweydiiyaan oo waaban tukanayaa waan hanuunsanahay xaalkaygu waa isku toosan yahay xalay salaatuleyl baan tukanayay hadda jamcaan la tukanayaa waan soomanaa waxay ducadan hadhiya habeen aan ku celcelinayo ilaahay ou i hanuuni koow wax badan baa kaa dhiman oo qabyo ka ah inuu ilaahay kuu ziyaadiyo 2 inta aad ku toosan tahay ee aad ku hanuunsan tahayna inaad ku sii sugnaato waa baahi weyn oo aynu qabno welibana 17 jeer waa faral sunnayaasha haddaynu u geyno mise isla noqonaysa waa mise faatixa maalinkii iyo habeenkii ka inoogu wanaagsan maaha intuu meel fadhiista inuu faatixa ku celceliyo taa ka hadli mayno laakiin waxyaabaha maalinkii iyo habeenkii laynoo jideeyey iyo salaadaha aynu tukanayno
imise faatixa ka soo baxay salaatuleylkii duxadii rawaatibtii ya xisaabta ma haysaan waa 40 faatixa wey 40 jeer baa salaada dhexdeeda oo ah camalka ugu weyn ee xubnaha laga sameeyo gudihiisa waayo ducadu waxay sii khayr badan tahay goobta lagu samaynayo iyo xilliga la samaynayo iyo camal wanaagsan gudihiisa in lagu samaynayo ama camalka marka la dhameeyay in la ducaysto waxyaabaha soo dhow waxyaabo keenaya ducada in la ajiibo qaabka loo ducaysanayo lafteeda waa mid keenaysa ducada in laga ajiibo 40 ka jeer salaada dhexdeeda baad ku ducaysanaysaa ilaahayow i hanuuni inta iga dhimanna ilaahayow igu hanuuni inta aan hayana ilaahayow ii sug oo igu sii hanuuni shanta salaadood waxaynu ka dhignay faatixooyinkoodu ragcadahoodu waa 17 17 laba duxaa uge waxaynu ka hadlaynaa ninka dadaalay walimana duxada 8na waa laga dhigaa 6na waa laga dhigaa 4na waa laga dhigaa adcafu iimaan baynu ka soo qaad laba duxaa uge 17 waa 19 19 waxaad u geysaa 11 salaatuleyla oo tii nabigu joogteeyay calayhi salaatu wasalaam waa imisa waa 30 salaadaha faralkaa sunnayaasha la socdo sunnayaasha ugu khayr badan waa imisa 12 waana 10 labaduba waa jiraan axaadiis baa sheegaysa ka hoose soo qaada 10ka ya imsaynu hayni waa 40 wey haddaad duxada sii badiso maghrib iyo cisha haddaad tukato haddaad waxa weeye salaatuleylka 22aad ka dhigto 50 iyo 100 bay gaadhaysa oo salaada dhexdeeda aad ku ducaysanaysa ilaahay una hanuuni aad ku ducaysanayso walibana ducada lagu ducaysanaya ihdina siraata almustaqiim waa duca dhammaystiran wey waayo ducada ugu qiimaha badan waa ta aan kula soo boodada ahayn intuu qofku fadhiisto ilaahayo waxaasaan ku weydiisanaya wuxuu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam intuu maqlay nin kula soo boodaya ducada oo dantiisa ku bilaabaya wuxuu uhi nabigu cajila haada kani waa degdegay qofku wuxuu u fadhiisanayaa duco ilaahayo waxaa faqri baan ka cabanaya ilah xoolaysii buu ka bilaabaya ilaahayo waxaasaan doonaya waa laga fiican yahay wuxuu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam midkiin hadduu ducaysanayo falyabda bitaxmiid اllah ilaahay ha mahadiyo waاthanaa'i calayh allah ha ammaano nebigana ha ku saliya calayhi الsalaatu wasalaam waa in ducada loo sameeyaa gogol xadh loo sameeyaa faatixada waxaynu ogsoonnaha ilaahay baa la ammaanay alxamdu bismi اllaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin الraxmaan الraxiim maaliki yowm اddiin waa wada ammaan ilaahay baa la ammaanaya qadiyadda labaad ee ducada qiimaha u yeelaysaa waa alictiraaf inaad xaqiiqadaada ka waranto iyadana ducadan waa laga horraysiiyey iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin ilaahayow addoonkaagii baana waan kuu dullaysanah waan kuu cibaadaysanayaa welibana cibaadada xeelad iyo xoog aan leeyahay ku samayn maayo ee adaan kuu kaalmaysanayaa oo waxa weeye haddaadan iigu kaalmayn igu garab istaagin aadan i waafajin waxa weeye suuragal maaha idan ducada marka laga horraysiiyo ammaan alle la ammaanayo mar labaad aada ictiraafto xaqiiqadaada ducadaasi waa duco aada u qiimo badan sayid اlistigfaar gebigeeduba waa ictiraaf weeye qofku inuu ictiraafayo abuu'u laka binicmatika calay wa abuu'u bidanbi ictiraaf buu samaynaya
kadibna faghfir li ilaahay oo dambi dhaaf odhanay nabigu wuxuu ku tilmaamay dambi dhaaf ilaahay la weydiisto waa ka ugu qiimaha badan waayo waxa laga horreysiiyey qofku inuu ictiraafo xaqiiqadiisa marka la soco ihdina siraata almustaqiim waxa la dhexgeliya salaadii waa faatixadii qur-aankii oo la akhrisanayay ka mid tahay qofku xaaladda ugu dhammayska tiran ee ilaahay uu la faqayo alle uu hortaagan yahay buu la imanaya waxaa laga horreysiiya ammaan badan iyo ictiraaf qirasho ayaa laga horreysiiyey maxaad u malaynaysaa 40ka iyo ka badan haddaad hadhiya habeen ku ducaysanaysa ilaahay ou ihanuuni wax sahlan maa waxaa sii xoojinaya ducooyinka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ugu badnaa yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diinik ilaaha quluubta gadgadiyow qalbigayga waxaad ku sugtaa diintaada waa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo la ilaaliyey gafara allahu lahu ma taqadama min denbihi wama taأkhar ayaa haddana ducada ugu badan ee uu ku ducaysanayey waxay ahayd ilaahayow qalbigayga diintaada ku sug walaalayaal waxyaabaha keenaya ee aan ku sii darayo shiikhu kharlaasiyo intaa uu sheegay in diinta lagu sugnaado keenaya waxaa ka mid ah aliimaan الsaadiq qalbigaaga iimaan dhabi inuu dego iimaan xaqiiqi oo dhaba oo qalbigaaga degay iyo yaqiin qalbigaaga gashay waxay keenaysaa inaad sugnaatay keenaysaa waxaa laga yaabaa dhibaatooyin waaweyn iyo fitnooyin iyo imtixaano inay kugu yimaadaan haddaad iimaan leedahay waad ka gudbaysaa fitan hadday kugu timaaddo ku saamayn mayso waad sugnaanaysaa dhowr tusaalaynu soo qaadanayna sida iimaanku waxu bedelo waxaynu ogsoonnahay nebiyullaahi muusa iyo fircawn markii ay isgaleen fircawn wuxuu yidhi ninkani waa saaxir weey iituunii bikulli saaxirin caliim buu yihi ninba ninkuu sixirka ka yaqaana ha laygu yeedho fajumica asaxaratu limiiqaati yowmin macluum dadkii sixirka ugu yaqaanay baa magaalooyinka la ysaga keenay waa la soo xulay waxaa la doonayaa inay nebiyullaahi muusa u babacdhigaan nimankaas waxay u yimaadeen laba qadiyadood koow waxay u dullaysan yihiin boqorkii fircawn amar buu siiyey ta labaad waxoogaa shilimaada bay doonayaan aina lana laajran in kunaa naxnu alghaalibiin haddaanu muuse ka guulaysanno mushqaayad mana la siinayaa bay idhahdeen qaala nacam wa inakum idan la min almuqarabiin haabaa lay welibana waa laydin soo dhoweynaya xoolana waa laydin siinaya waana laydin soo dhoweynaya oo booskii aad joogteen boos ka sarreeyaa laydin geynaya nimankaa xaalkoodu saasuu ahaa dabadhilif bay ahaayeen dad bilaa mabda ay ahaayeen dad cabsanayay ahaayeen dad shilimada adduunyo doonayay ahaayeen markay arkeen muusa calayhi الsalaam wuxuu soo bandhigay waxay yidhaahdeen aamanaa birabbi اlcaalamiin rabbi muusa wa haaruun iimaan baa qalbigooda degay marka iimaankaasi qalbigooda degay nimankii waa isbedeleen fircoon de waa la ogyahay awooddiis alaysa lii mulku misr wa haadihi اlanhaaru tajri min taxti waa ninkii gaadhay inuu yidhaahda ana rabukum اlaclى maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaah kale idinma ogi waa ninkii halkaa gaadhay ninka noocaasa oo ay u hoggaansanaayeen ayaa markii iimaanku qalbigooda uu degay xaalku waa isbedelay fircoon waxa uu yihi lawqaطicana aydiyakum waarjulakum min khilaaf waxaa weeye si isdhaafa ayaa lugaha iyo qacmaha idin gogoynaya waa u hanjabay uma lausalibanakum ajmaciin intaan idin dilo baan idin daldalayaa buuri hanjabaadtii ugu dambaysay oo og yihiin inuu fulinayo
ayuu waxa weeye u hanjabay. maxay ugu jawaabeen? waxay yidhaahdeen faqdi maa anta qaad lan nu'hiraka calى ma jaءana min albayinaat wاladii faطaranaa faqdi maa anta qaad. waxa aanu rumaynay waxa weeye wax kale ku bedelan mayno oo waxaanu kaa fadilaynaa rumaynta alle subxaanahu wa tacaala aanu rumaynay iyo xaqaa noo caddaaday. faqdi maa anta qaad, xukun waxaad xukumayso, fuli waxaad fulinayso, samee waxaad samaynayso. inamaa taqdii hadihi alxayaata addunya, xukumkaagu wuxuu ku kooban yahay adduunyo. waxa ugu badan ee aad samayn kartaa waa inaadna disho, laakiin aakhira la ysugu imanaya. nimankaas sikinay isku bedeleen. sugnaanshaha intaa legna waxaa u keenay iimaanka qalbigooda degay. waxaa la mid ah asxaabu اlukhduud oo ilaahay suuraة اlburuuj uu kaga warbixiyey. markii wiilkii yaraa uu waxa weeye soo islaamay ee uu awoodi waaye boqorkii inuu dilo ee uu yidhi haddaad doonayso inaad iddisho ii taag heli maysid, ummadda isugu yeedh. dabeedna tacliimaad uu siiyey oo uu yidhi markaad leebka la igu ganayo waxa weeye magaca allaha loo qabto bisinka si aan u dhinto. dadkii hal mar bay yidhaahdeen aamanaa birabbi اlghulaam, wiilkaa rabbigiisaanu rumaynay bay dadkii yidhaahdeen. waa dadkii cabsanayey ee waxa weeye u hoggaansanaa boqorkaas, hal mar bay isbedeleen. waxaa loo qoday bohlo naareed baa loo qoday, dadkii baa lagu guray. gabadh baa soo istaagtay ilmo yar oo dhashay waxa weeye sidata oo xambaarsan. wuxuu ka mid yahay ubadka la sheegay iyagoo dharabka ku jira oo waxa weeye maalmo ama bilo jiray si caadiya u hadlay buu ka mid noqday ee nabigu inoo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam. hooyadii dabkii holcayina saasay u egtaa, saasay u eegaysaa. marna ilmihii yaraa ee ay sidatay umul bay ahayd ee naaska ay jaqsiinaysay bay eegaysa. markay iimaanka ay xasuusato ay ilaahay rumaysayna waxay doontaa inay dabka waxa weeye hore ugu dhacdo. ilmaha markay eegtana taqaacasad, dib bay isu taagaysa, waayo ilmihii way sidataa, laabtay ku sidataa, ka hadhi maayo. ilmaha yar naxdin ay u naxayso maaha nafteeda ayay waxa weeye dib isu taagaysa. ilaahay si uu u sugo ilmihii buu ka hadal siiyey oo waxa uhi yaa ummaah isbirii fainaki cala alxaq, hooyay ku sabir, xaqaad ku taagan tahay. markiibay tiimbatay waxa weeye dabkii. waa mowqif aad u adag weeye, waa habaat. sugnaanshahaasi wuxuu ku yimi iimaanka qalbigeeda degay. waxaa la mida ilaahay nama imtixaano. imtixaanaadka dadka qaar soo maray haddayna soo mari lahaayeen dad badan baa waxa weeye xaalkooda cuslaan lahaa. sacd bnu abi waqaas axad اlcasharati اlmubashariina biاljanna ayaa waxaa dhacday markuu soo islaamay maka, min asaabiqiina alawaliin buu ka mid ahaa. markuu soo islaamay baa hooyadii loo sheegay oo uu dadka ugu jeclaa. nin aada ugu samafal badanna waa ahaa. waxaa la yidhi inankaagii diintii aynu isku ogeyn waa ka baxay oo maxamed buu raacay. dabeedna waxay tidhi wallaahi laa aakulu طacaama walaa sharaaban xataa tarjica can diinik. ilaahay baan ku dhaartay inaanan waxna cunayn waxna cabbayn ilaa aad ka laabata diintaas. xataa takfura bimuxamed, ilaa aad nebi maxamed ka gaalowdo waxa weeye cuntona cuni maayo waxna cabbi maayo. waxay og tahay waa boyntiga ugu culus ee saamaynaya. dhaguhu ka furaysta. maalinkii koowaad may quraacan, may qadayn, may cashayn, waana qof waa yeele.
maalinkii labaad intaa walaaladii waa la hadlayaan waxaa leeyahay islaantii waa gaajoonaysaa uma joojin maalinkii saddexaad markay gaadhay iyadoo aan waxna cunin waxna cabbin ayay suuxday islaantii taagdarri awgeed ayay suuxday ugamana soo dhaqaaqin inamadeedii qaar ka mid ah wax siiyey markaasay quusatay isaguna uma joojin wain jaahadaaka calىa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilm falaa tuطichuma haddii labada waalid ay kugula dagaalamaan inaad gaalowdo alle subxaanahu wa tacaala waxaa uhi lagu adeeci maayo laa طaacata limakhluuqin fii macصiyaةi اlkhaaliq si aynu u sugnaano waa in iimaankeenna aynu xoojinnaa si aynu fitanta iyo imtixaanaadka uga baxno waa aragteen qof xaalkiisu isku toosnaa wanaagsanaa dadaalayay baa fitno yari ku soo baxaysaa soo noqon maayo waxaa laga yaabaa xil in loo magacaabo masjidka aanu dib u soo gelin waxaa laga yaabaa xoogaa xoolaa ilaahay inuu siiyo masjidka inaanu dib ugu soo noqon waxaa laga yaabaa gabadh qurux badan inay hormarto inay sidaa ku kaxaysato dib baanu u soo laaban fitno yaroo sahlan qofkaa inay duufsato oo aanu dib u soo laaban maxaa lagaga badbaadaya iimaan dhaba ayaa waxa weeye lagaga badbaadaya waxaa la mida oo shiikhu inoo sheegay in la diraaseeyo oo la barto qisas اlambiyaa imtixaanaad badan baa soo maray diinta alla waa lagu dhibay ugu horeeya nebi maxamed calayhi الsalaaةu wasalaam ibraahim calayhi الsalaaةu wasalaam muusa calayhi الsalaaةu wasalaam iyo ambiyada la midka aad baa loo dhibay ilaahay waxau uhi wakula naqusu calayka min anbaaءi الrusul waxaanu kaaga qisoonaynaa ambiyada akhbaartooda iyo qisastooda ujeeddadu waa maxay linuhabita bihi fu'aadak innagana waxaa laynooga qisooday qisooyinkii nebi maxamed calayhi الsalaaةu wasalaam waxaasoo dhan waxaa looga jeedaa si aynu ugu cibro qaadanno oo aynu uga faa'iidaysanno oo habaadka iyo sugnaanshaha aynu uga baranno nebiy llaahi ibraahim baa tusaale inoogu filan waxaa la qoday god aada u weyn baa loo qoday muddaa la shidayey wixii xaabo iyo dhir iyo geeda lahayaa lagu shiday markii wixii bay isla casaadeen ayaa waxa weeye la soo qabtay waxaa la dul istaajiyey dabkii kamuu badin inuu yidhi xasbiya allah wa nicma alwakiil ilaahay baa igu filan mid la tala saartana ilaahay baa ugu wanaagsan kelmaddaasun baa ka soo baxday wax walaaca iyo wax cabsiya iyo wax shakiya waxa weeye midina kuma iman nebi maxamed calayhi الsalaaةu wasalaam markii maka la joogay ee saxaabadii la dhibay ee waxa weeye cadaab adduunyo kii ugu darnaa la mariyey ayay u yimaadeen nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam waxay yidhaahdeen alaa tastansiru lana alaa tadcu اllaha lana sida bukhaari ku timi miyaad ilaahay hiil noo weydiisid miyaad noo ducaysid ilaahay inuu noo hiiliyo ayay nabiga ka codsadeen calayhi الsalaaةu wasalaam dabeedna nabigu wuxuu ku yihi calayhi الsalaaةu wasalaam ummadihii tegey waa la imtixaanay waxaa dhacaysay mid ka mida in waxa weeye biro naara in waxa weeye sidaa loogu xoqo dabadeedna la kala sooco hilibkiisa iyo lafihiisa ay kala soocmaan aanu diintiisana ka laaban oo aanu ka noqon wuxuu nabigu ugu dara calayhi الsalaaةu wasalaam wallaahi layutimana allahu hada اddiin ilaahay baan ku dhaartay diintan ilaahay waa dhammaystirayaa oo waxa weeye meel buu gaadhsiinayaa wuxuu uhi nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam isagoo dadka mooraalka u dhisaya layablugana hada اlamr maa balaga اlleylu wالnahaar
diintani waxay gaadhaysaa maalinka iyo habeenku halka uu gaadho walan yatruka allahu bayta madarin walaa wabar ilaa adkhalahu allahu hada addiin bicizi casiizin aw dulli daliil wuxuu nabigu ku dhaartay calayhi الsalaatu wassalaam waana ballan alle subxaanahu wa tacaala uu ka hayo diintan alle subxaanahu wa tacaala meel walba in la gaadhsiinayo guri ku yaalla magaalo iyo mid miyi ku yaalla dunida daafaheeda meelay u tahayba in diintani gaadhayso ama waxay ku gaadhaysaa ciz iyo sharaf qofku inuu ku qaato ama sandulle inuu ku qaato isagoo dullaysan inuu qaato kay u tahayba in diintan alle subxaanahu wa tacaala meel dheer uu gaadhsiinayo waxaa ka mid a walaalayaal qodobada muhimka shiikhuu tilmaamay aan sii xoojinayo alistiqaama in la toosnaado oo ah ficlu الطaacaat wa tarku اlmuxaramaat in la sameeyo ficilada wan wanaagsan daacooyinka in la badsado khayraadka in la badsado almubaadaraةu ilى الصaalixaat camalada wan wanaagsan in loo degdego cagsigeedana laga fogaado oo macaasida iyo dunuubta iyo waxyaabaha la midkana la yska ilaaliyo taana ilaahay baa kitaabkiisa ku sheegay inay ka mid tahay waxyaabaha lagu sugnaanayo walow annahum facaluu maa yuucaduuna bih lakaana khayra lahum waashadda tahbiita waida laaataynaahum min laduna ajra cadiima walahadaynaahum siraaطa mustaqiima walow annahum facaluu maa yuucaduuna bih hadday samayn lahaayeen waxaa lagu waaninayo khudbadaha jimcaha kelmadaha la ysu jeedinayo talooyinka la ysa siinayo dadku hadday samayn lahaayeen waxa lagu waaninayo ay dhaqan gelin lahaayeen fulin lahaayeen taasaa u wanaagsan buu alle subxaanahu wa tacaala leeyihi wa ashadda tahbiita waxyaabaha diinta ku sugayana waa ta ugu adag weeye waa kuwa ugu waaweyn waxyaabaha ugu waaweyn ee sugnaanshaha keenaya in camal ka wanaagsan la badsado sidaa shiikhuu sheegay waxaa weeye degaanadeenna somalilan puntland koonfurta kenya jabuuti kililka qurbaha meel ummadda soomaaliyeed ay joogto oo sidaa jawigu uu yahay fili maayo xaramkii un baan ku naqaani maka iyo madiina in maalmaha khayrka badan waxa weeye masjidka la soo camiro iyadoo la sooman yahay masjidka gudihiisa lagu afuro muuqaalkaa qofku markuu indhaha ka qaado xamaas baa gelaya waxay dad badan ku dhiiri gelinaysaa inay soomaan waanu xasuusnayn xaramkii iska arday baanu ahayn dhallinyaro ah markaanu masjidka soo galnaanu aragnaa iyadoo masjidkaba la goglay waar maanta toloma isniin baa mise khamiis markaasaanu xasuusanaa sida dadka qaar hadda dee la iska wada xidhaaye beri baan xasuustaa haddii la arko nin khamiis xidhan inta la yseegaa la odhanaya toloma jimca maanta ma jimca jimcayaasha un la xidhanayay hadda waxay ka mid noqotay labiska camalkaa wanaagsan ee lagu dadaalayaa oo waxyaabo keenaya sugnaanshaha keenaya cagsigeedu wuxuu keenayaa cagsiguu keenaya camalka wanaagsan inaad samaysaa inaad ku sugnaatuu keenaya macsiyada iyo xumaanta in la sameeyaana waxay kaa hor istaagaysaa camalkii wanaagsanaa falamaa zaaguu azaaqa allahu quluubahum markay leexdeen ee macaasi iyo dunuub iyo wixii la mid ay u leexdeen baa ilaahay quluubtooda leexiyey waxay culimmadu yidhaahdeen camalka wanaagsan samayntiisa abaalka ugu weynee adduunyada lagu bixiyaa waa in lagu fududeeyo camal kaloo wanaagsan waa aragteeno markuu maanta qofku soomo jamcii buu ku dadaalaya quraan akhriskii buu ku dadaalaya dunuubtii iyo macaasidii buu ka fogaanaya wamaa cubida allaha bimili tarki اlmaxaarim bay culimmadu yidhaahdeen ilaahay laguma caabudo wax ka weyn
inaad xaaraantiisa ka tagto wuxuu kaa xaaraantinimeeyey wax badan oo khayraada baa kuu furmaya waa abaalgud adduunyada lagugu soo dadejinayo markaad wanaag samayso in waxa weeye wanaaggii lagu furo oo aad u degdegto sii badsato waxay kaloo culimmadu yidhaahdeen macaasida iyo dunuubtana cuquubada ugu weyn ee adduunyada la ysku ciqaabaa waa in lagu sii furo abwaab macaasi lagu sii furo dembi buu samaynayaa waxa weeye dunuub kaley sii gaadhsiinaysa qalbigiisii baa madoobaanaya nuurkii baa ka baxaya iimaankii baa daciifaya shaydaankii baa xoogaysanaya macaasidii baa la sii qurux badnaanaysa dabeedna halkaasay ka sii soconaysa qofku markuu zinada ku dhacayo ku soo boodda maaha waa ogtii marka hore ishuu la raacayaa muuqaalla xunxun buu daawanayaa dabeedna dareenkiisaa kacaya waxbuu raadinayaa hadal xaaraana buu kula hadlayaa kulan xaaraana baa la ysugu imanayaa say midiba mid ugu dhiibaysa markii dambe waxaa lagu dhacaya tii weyneed baa lagu dhacaya marka camalkan wanaagsan ee la wado in la joogteeyo waa mid yaduna waxa weeye lagu sugnaanaya waxaan kaga baxayaa oo ku soo gabagabaynaya qodob aan u bixiyey alxadar hala digtoonaado maxaa laga digtoonaanayaa waxaa laga digtoonaanayaa waxyaabaha keenaya diinta alle subxaanahu wa tacaala inaad ka baydho waxyaabaha keenaya daacooyinkii aad samaynaysay inaad u daba jeediso waxyaabaha keenaya dib inaad u laabato waxyaabaha keenaya walciyaadu biاllaah inaad diintaba ka baxdo waxa weeye inaynu aad iyo aad isugu baraarujinno koo waxa ka ah fitnaة اljaah magac iyo maamuus iyo madaxtinimo jacayl iyo waxyaabaha la midka ah dad badan bay karkaarka weydaarinaysa nebiguna uu sheegay calayhi الصalaaةu wasalaam maa di'baani jaa'icaani ursila fii ghanam biafsada laha min xirsi اlmar'i calى اlmaali waالsharafi lidiini waxaa ugu fasahaadin badan qofka diintiisa qofku inuu sharaf doono inuu magac doonayo hadda doorashaa laga soo baxa dad badan baa xildhibaanna doonayay niyooyinkooda waa kala duwanaayeen mid waxqabad buu doonay iyo inuu wax soo kordhiyo minkum man yuriidu اdunyaa wa minkum man yuriidu اlaakhira mid waxaa laga yaabaa niyo wanaagsan buu qabay inuu dadka wax u qabto mid labaad waxoogaagaa gunnada ama mushaharkaa buu doonay qaar baa laga sheegaya markii ololahu socday waxoogaagaa iska qabow ya waa aragtay golaha baarlamaanka oo kale markay maalmo shaqeeyaanba kalfadhigii baa xidhmay duniday kala gelayeen bishiina 2,500 baan filaya iyo wax ku dhow marka waxyaabaha kale laga yimaada iska qaadanaya mushaharkaa qabow aan tacabka lahayn ee maalin xafiiska la tegayo ama marka mooshin jiro wax loo codaynayo waa laga yaaba qaar inay u socdaan dadku waa ku kala duwanyiin qaar waxay u socdaan adduunyana waa haystaan waxa weeye waxyaabo kalena waa haystaan laakiin wuxuu doonayaa magac maamuus buu doonaya meeshuu soo galaba in la yidhaha waa xildhibaankii fadhiga in looga kaco magac buu doonaya inuu magac ku helo waa waxyaabaha diinta fasahaadiya hadduu qofku isilaaliyo ilaahayna uu magac siiyo waa tilka caajilu bushra اlmu'min haddaad khayr iyo wanaag magac ku hesho waa abaalkii aakhiro wax ka midoo lagu soo dedejiyey wey ceeb maaha kaasi waa qodob inuu qofku magac doonayo nin baa waxaa laga sheegay wuxuu uhi war waxaan doonayaa magac inaan yeesho si degdega inaan magac ku yeesho nin saaxiibkiiya baa jar uga tallaabsado wuxuu ihi haddaad doonayso magac degdeg oo dunida daafihiisa ka dhaca horta xaji buud ummaddu markay zamzamka isugu timaadee zamzamkaa barakaysan ay ka cabbayaan halkay ummaddu ka cabbaysa adigu kaadi la dul istaag buud dabeedna kaadi buu la dul istaagay dunida daafaheedii baa la ysaga tilmaamo
waxaa la yidhi ninkaasi waa ninkii zamzamka ku kaajay baa layidhi magaca waa helay laakiin dawaxun buu ku helay magaca dadka qaar magacun bay doonayaan siday doonaan ha ku helaan waa aragteen dee miidiyaha iyo dadka qaar waxay ku soo caanbaxayaan hadallada suuqiga liita iyo waxyaabaha la midka magacaasi dad badan buu galaafanaya halaagaya waxaa la mida almaal wamaa adraakum ma almaal xoolaha in laga daba dhaco hadda maaha xoolaha in laga ganacsado maaha in la tabcado maaha in la shaqaysto ee xooluhu inay maskaxda kaa qabsadaan ku seexatid ku soo toostid cibaadada kaa mashquuliyo ilaahay iyo aakhira uu ku ilowsiiyo wuxuu leeyahy nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii kacb ibni ciyaad ina likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati اlmaal ummad waliba fitnay leedahay lagu fitnaynayo ummadda nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam fitnadeedu waa xoolo weeye xooluhuna khatartiisuu leeyahy in laga digtoonaado qodobka saddexaad waa fitnatu الshahawaat fitnatu الnisaa shahwadda iyo dareenka iyo dumarka iyo waxa ku saabsan dadkii horena waa halaagay ina أwala fitnaة kanat fi bani israa'iil faina أwala wاtaquu الnisaa faina أwala fitnaةi bani israa'iil kanat fi الnisaa banu israa'iil wixii halaagayna dumar bay ahaayeen waxaa dadkan dambe halaagaya welibana xiliyadan dambena fitnooyinka ugu waaweyn dumarkaa ka mida waana ogtihiin baraha bulshada iyo filimada xunxun iyo dareenka waxyaabaha kicinaya sida uu u badan yahay waa midaynu ogsoonnahay fitnadaasina waa fitno weyn oo la doonayo in laga gaashaan qaato nin culimmadaydii ka mida brofesoradii jaamacadda madiina nin waayeela buu ahaa dhowr iyo 60 sano ah intaana tafsiir iyo culuum اlqur'aan buu dhigayay doctor xikmed bashiir yaasiin markaa taqaacud buu ahaa in la fadhiisiiyo ayuu gaadhay dhowr iyo 60 buu ahaa wuxuu yihi waxaan ka fadhiisanayaa jaamacadahan sacuudiga waxay dalbaday buu yihi jaamacado maleesiya iyo meelo kale ku yaala oo lacagtii halkan layga siinaya lacag la mida ama ka badanay siinaya laakiin wuxuu yihi waxaan go'aansaday inaanan tegin sababtu waa maxay wuxuu yihi sacuudiga jaamacadaha dumarka xitaa haddaan u dhigayo isma aragno waayo kolley dee hadda waxbaa isbedelay waa la socotaanoo isbedel badan baa dhacay laakiin markaa ninka xitaa dumarka u dhigayaa qol gaara buu gelaya aniga laftaydu mar baan maxad dumar sacuudiyaad aan macallin ka noqday gidaar yar baa wejiga la ii saaray mikrofonna saasaa la igu soo dhaweeyey dumarkuna hawl kaley fadhiyaan codkaaga un baa gaarhaya isma arkaysaan jaamacadaha laakiin adigu arki maysida iyagu waa ku daawanayaan shaashaday kaa daawanayaan macallinku hadduu doonayo inaan la daawan shaashadii shucaac buu ku furaya haddaad doontana kaleer baad ka dhigaysa adigu laakiin dumarkaa is arki maysaan haddaad is aragtaanna way wada niqaaban yihin waxba laga arki maayo wuxuu ihi haddaan jaamacadaha u baxo dibadaha waa nin waayeele jaamacadaha dibadda haddaan u baxo waxaan ka baqayaa dumarkaa wejiga qaawan aan niqaabnayn ee soo hor fadhiisanaya inaan ku fitnoobaan ka baqaya taa wuxuu ka doorbiday inuu madiine iska joogo bilaa camalla uu ku joogo welibana sacuudiyaan maaha ina ciraaqi buu ah ninka sacuudiyaanka hadde lacag baaba isaga sii soconaysa isaga xuquuqdiisa inta la siiyo baa la kala dhammaanaya isagoo da'daasabaa wuxuu ka baqayaa fitnat الnisaa dadka qaar baa waxay yidhaahdaan gabdhaha la iska salaamo mar haddaadan shahwo u jeedin gabadha saaxiibadee kula shaqaynaysa gabadha akhyaartee wanaagsan waa la isqacan qaadayaa waa la isa salaamayaa dhabankaa la isu saarayaa yaa wadaadkan ka hadlaye dadkii ka wada dhigay dad wada shahwadoonaya oo dumarkii aan lagu aaminayn waa xag jir buu waa la isa salaamaya waa caadiyo halkaasuu ka baxa wamaa khafiya acdam waxa qarsoonna ilaahay baa og ninkaas subax iyo galab iyo habeen dumarka laabta u saaraya dhabanka u saaraya qacan qaadaya ku dhex milmay sida ragga ula dhaqmaya dee waxa weeye welibana dhallinyarada ah
cid waliba xaalkiisa way iska qiimeynaysa been baa la isu sheegayay walaalayaal fitnooyinka waaweyn waxaa ka mid ah dad badan oo horena halaagay dad badan oo hadda lumay halaagaya waxaa ka mid ah fitnatu alcujb waalguruur waalkibr qofka isla weynay inay gasho naftiisa inuu la cajabo naftiisa inuu ka helo wuxuu isku arkayaa xoogaa fahma badnaana inuu maskax badan yahay tacaalu dabadeedna wuxuu nacayaa masaajidadii buu iskala weynaanayaa dadkii ahlulkhayrka ahaa buu iskala weynaanayaa wuxuu isu haystaa dadka inuu ka horeeyo ka caqli badan yahay ka tayo badan yahay been buu isu sheegayaa kibirka iyo quruurkaasina waa waxyaabaha ugu badan ee dad badan aafeeyey qofku inuu ku sifoobo tawaaduc inuu isduldhigo واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا أنبياء ضدك وجه الرياء رمية أو حوي هجان سما أنت بدن خيرك يا وناجي الدعوة ضدك وسو تشيستا وضد وحوي أن أهل الدنيا أهي ama iyagoo awood u leh adduunyadii iskaga tegay ama alla subxaanahu watacaala adduunya aanu ku arsaaqin kii adduunyada loo furay waxaa laga yaabaa fadhiyadooda iyo majaalistooda xalaqaadka markuu yimaado uu ku arko niman dhalinyaro ah oo qalin leefa oo khamiiska ku jactaday inuu yidhaahdo kuwan la fadhiisan maayo dabeedna ambasador iyo mansoor iyo meelahaas yaa maryuhu wada dhiibsan yihiin kamuuna wada baalashaysan yihiin inuu meelaha fadhiisto inta badanna de meelaha dikrullah laguma hayo waa ognahay ilaahay xuskiisa meelahan oo kalaa lagu hayaa meelahan oo kalaa lagu hayaa marka isla weyninka iyo cujbiga iyo quruurkaas isaguna waa fitno weyn oo dad badan saamaysay inaad qalbigaaga jilciso sidii shiikhu sheegay dadka wanaagsan aad ku xidhnaato safka hore aad laasimto dadka ahlulkhayrka aad ku soo dhowaato ta noocaasa insha allahu tacaala badbaadadu ku jirtaa maalmihii khayrkuna waa gabaabsiya in aad iyo aad looga faa'iidaysto alla subxaanahu watacaala waxaynu ka baryaynaa waxa weeye maalmahan wixii inaga tegayna camalkii wanaagsanaaya aynu samayna allah inaga aqbalo maalmaha hadhayna alla subxaanahu watacaala khayrkeeda hayna waafajiyo alla subxaanahu watacaala khaatumada haynoo wanaajiyo abwaabta طaacaadka allah inoo furo albaabada macaasida iyo dunuubtana allah inaga xidho alla subxaanaه watacaala saasaynu ka baryaynaa waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin